waxaa la cadeeyay inuu dhintay Joe Linder oo kamid ah jimistayaasha adduunka ugu caansan mid kamid ah dadka ugu dhisan adduunka oo jimkana sameyn jiray waxyaalo la yaab leh baa dhintay sababta uu dhintay waxa la leeyahay autism cudur la dhahay uu dhintay yani I don't know suffered an aneurysm, which for anyone that doesn't know is an abnormal swelling or bulge in the wall of a blood vessel that can asxaabay aneurysm qofka garanaya noo soo sheego asxaabka saaxiibkiinan oo jimista wuxuu dhintay xanuun buu surka ka dareemayay halka surka maybe waxa leeyahay xididkaas halbowlahaas dhiiga qaado maskaxda dhiiga siiya baa xogaa caabuq baa ku imaaday sidoo kale wuxuu qaadan jiray ninkan steroids irbadaha jimka loo qaato buu cabi jiray oo qaadan jiray marka sababtiisa saasa loo cadeynaya inay tahay yani loo maleynaya in sababtu dhintay inay tahay sidoo kale ninkan Joe Linder wuxuu ahaa 30 jir wadanka Jarmalka uu dhashay laakiin wadamo badan oo dunida ku noolaan jiray dad badan buu noloshooda bedel jiray dhiirigelin jiray oo jimka iyo yani macallin jim oo kale online dadka wax ku bari jiray Instagram buu ninkan famous ka ahaa 8 milyan haystay sidoo kale waxa jirta dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo steroid qaata ninkan cilada uu dhintay waxa leeyahay waa steroids irbadaha jimka loo qaato irbadaha suqaad marka waxa jirta gabdho iyo wiilal badan oo Soomaali ah oo steroid isticmaalaan Soomaalida waxa ka codsanay inay bartaan steroid maxay tahay side effectgeeda muxuu yahay wadnaha dhibaato intee leeg bay u keenaysaa madaxaaga yani ninkan hadda maskaxda dhiig baa uga furmaya leeyahay oo yani high blood pressure buu ninkan u dhintay xanuunku u dhintay waa high blood pressure ma dhiig baa uga furmay maskaxda dhano caafimaadka aad baa aqaan aniga laakiin dhalinyaro badan baa jirta oo Soomaaliya ta joogan ama dunida inteeda kale oo steroid qaataan hatta waxa jira nin kale oo Rich Piana la oran jiray wuxuu u dhintay asagana irbadaha jim ku qaadan jiray 40 sano ku dhintay marka Joe Linderna wuxuu ku dhintay 30 sano ku dhintay geerida meel ay ku soo jirtay ma taqaanid ama weynow ama yarow ama xoog badnow ama murqaba weyn lahow way ku imaanaysaa waqti inoo imaanaysana ma ogin kuligeen waxa cad laakiin ina dhiman doono oo kuligeen adduunka ka tagano ilaahay khaatimada nagu dilo ninkan oo u jeedaa saan u dhisnaa saan u murqa weynaa waxa weeye waa dhinta waxa jira dhalinyaro badan oo jimka aadaan salaadan aan tukan waxba oo aaminsan caafimaad qabaan waa yartahay oo malakamoodku ma ku imaan malakamoodku time male ama yarow ama weynow ama ku imaanaya marka ilaahay khaatimada nagu dilo waxa weeye dhalinyarta sharoobada mataqaana oo gabdhuhu isku cayilaan cabaan malabkan Soomaalida badankoodu cabaan steroid way ku jirtaa waa steroids waxyaalahan gabdhaha Soomaalida isku cayiliyaan oo dhan waxyaalaha hadda ay rayaan bajaaj iibiso steroids waaye marka muddo ka bacdi way caddahay inaa u dhiman doontid xagga wadnaha laga soo weeraro ama xagga maskaxda ama xididadaada cilad ku imaato waxa weeye ama beerka iyo kaliya cilad kaaga imaato marka dhalinyarada badankiina waxa rajeynaa inta luqada Carabi English ka taqaana ina research ku sameeysan steroids maxay tahay maxay tartaa dhibaato noocee leedahay maxay ka sameeysan tahay iska ilaaliya in salaama